mas-uuliyiinta xisbiga u cida gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka ayaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay gudaha magaalada Burco wafdi uu hogaaminayo xogayaha siyaasadda iyo hirgelinta barnaamijka xisbiga mudane Cali Salebaan Maxamuud oo soo gaaray magaalada Burco soo dhaweyntan ballaaran ee loo sameeyay xogayaha ayaa waxa ka qayb qaadanayay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga u cida ku sugan gobolka Togdheer munaasabad kooban oo loo sameeyay soo dhaweyntan ayaa waxa ugu horeyntiiba ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga u cida gobolka Togdheer iyo madax dhaqameedka gobolka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa galabta xogayaha hirgelinta siyaasadda xisbiga iyo barnaamijka mudane Cali Salebaan Maxamuud waxaan leenahay xogaya ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow gobolkii Togdheer oo runtii aad lagaga sugayay adiga iyo barnaamijka xisbigaba insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaad wax muuqdo gobolka qaban doonto inaad si fiican siyaasadda xisbiga uga hirgelin doonto gobolka runtii waxaad xubnaha ugu firfircoon ee sugaynay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow xogaye Togdheer wuxuu ku hayaa ahmiyad xoog leh ilaa maalintii lagu magacaabay xilka waxaan ku taagnay wadooyinka saacad kasta waan ku sugaynay waana arki doonaa insha Allah isbedel weyn inaad ku soo kordhin doonto gobolka haddaan nahay maamulka gobolka Togdheerna waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan kaambeynkan aan sharciga ahayn ay labada xisbi bilaabeen una adeegsadeen madax dhaqameedkii reer Soomaaliland galbeed iyo bari bay isaga yimi dadkan codka waxa haya dadka inala joogay iyo dadka maqan ee Soomaaliland iyaga masiirkooda siyaasiga dooranaya ugu dambeyntiina waxa uga mahadnaqay dadkii soo dhaweeyay xogayaha hirgelinta xisbiga u cid Cali Salebaan Maxamuud waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhammaan bulshada reer Togdheer sida aad iyo aad qiimaha badan ay soo dhaweyseen Togdheer waa gobolkaygii Burco waxa weeye waa degmadaydii waa magaaladaydii waxaan ii sheegayaa inaynu kulamo badan qaadan doono oonu ka arrinsan doono xaaladda dalka iyo gobolka waayo waxaanu wada ognahay in doorashadii wakhtiga inooga hadhay oo ololihii kaambeynka inoo bilaabmi doono intaa waxaan u dhaafayaa waxa aad iyo aad madax dhaqameedka Soomaaliland aad iyo aad bay sharaf u mudan yihiin aniga iyo dhammaan Soomaaliland oo dhan waxaan sameeyahay waxaa leedihiin guddoon dhaqan ma lihidin go'aan siyaasadeed go'aanka siyaasiga waxaa iska leh shacabka reer Soomaaliland cidda ay tirada u dhiibanayaan iyo cidda 5 sano soo socota dalka ka tali doonta Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad Bulsha TV Burco